kulanti waxaan u wanaagsan dadka daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idin ka soo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. barnaamijkan idinku soo fool leh ayaa daawadayaal waxa aan ku qaada dhigi doonaa oo aan ku eegi doonaa dhawaan madaxweynaha DDS Mustafa Maxamed Umar Agchar ayaa waxa uu ilaamiyay sida aad wararka ka dhageysanayseen shirweyne ballaaran oo ay isugu yimaadaan Soomaalida ku dhaqan amaba ku nool ama deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. shirkaasi ayaa waxa uu madaxweynuhu sheegay in lagu qabto magaalada Goday. shirkaas hadaba muxuu ku saabsan yahay? waa maxay ujeedada laga leeyahay? maxaa loogu qabanayaa Goday oo lagu qaban waayay meel kale? ama se maxaa Goday loo doorbiday oo lagu doortay? shirkani ayaa waxa uu daba socdaa shir ka horeeyay oo beesha dir lagu qabtay ama ay ku qabteen magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya. shirkaasi oo siyaalo kala duwan dadku ay markaasi u arkayeen amaba aragtiyo kala duwan loo qaatay. waxa shirkaasi lagu saleynayay waa shirka hore in uu ku saleeyahay amaba uu xiriir la lahaa murankii iyo khilaafkii soo kala dhex galay Axmed Shide oo ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo ah madaxweynaha DDS. qodobada aan ku eegi doono barnaamijkeenan ayaa waxa kamid ah sababta shirkan ama baan ilaahay waxa ka dhaxeeya xiriirkii hore ee shirkii hore iyo kan ka dhaxeeya isbedelka cusub ee Soomaalida Itoobiya ma la qabsan karaan isbedelka guud ee Itoobiya la soo gudbanaada bilihii u dambeeyay amaba intii uu qabtay Abiy Ahmed? ma la tartami karayaan qowmiyadaha kale mise iyagu baa mashquul isku noqon doona? waxaanu eegi doonaa iyagana faragelinta maamulka Somaliland uu ku hayo dadka ku nool DDS siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaanba. marka horese daawadayaal aan soo dhaweeyay markale Mustafa Martin oo barnaamijkan aan ka wareysan doono. soo dhaw Mustafa. waad mahadsantahay. waayahay marka ugu horeysa sida aan hordhaca barnaamijka ku sheegay shirkan lagu qabanayo magaalada Goday ee Soomaalida loogu baaqay muxuu yahay? shirkani waxa weeyaan shir lagu yeerayo ummadda Soomaaliyeed degta deegaanada Itoobiya oo dhan. shirkaas oo la doonayo in lagu gogol xaaro sidii loo midayn lahaa ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degan dhaqan ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba. waxa laga tuujinayaa shirkaas waxa weeyaan in la abuuro himilo Soomaaliyeed isku dhafan oo isku dhan oo la tartanta qowmiyadaha degan Itoobiya ee dhan sida Oromada iyo Xabashida intaba. marka waa abaabul aad iyo aad u wanaagsan oo bilow ah weeyaan. maxaa xiriir ka dhaxeeya shirkii hore ee beesha dir ee bariyaha la iclaaminaya lagu qabtay magaalada Addis Ababa iyo kanmika? maxay kala yihiin? horta labada shir waxaad moodaan inay isdaba socdaan oo markii hore shirka dirta ayaa horta markii hore abaabulka lahaa ee lagu qabtay Addis Ababa. dabeedna waxaad moodaa shirka tabashooyin ka soo baxay ama dareeno ka soo baxay awgeed ayaa shirkan dambana loo qabtay. laakiin labada shir mid markii hore wuxuu ku bilaabmay beel kaligeed shiraysa, laakiin ka dambe imika waxaad moodaa in la isugu keenayo beelihii oo dhan ee degan Itoobiya oo dhan. waayahay shirkii hore ee beesha dir maruu ka hadlayay madaxweyne Mustafa laftiisu waxa uu ku tilmaamay in shirkan ay soo qabanqaabiyeen oo ay ka soo qayb galayaan dad aan deegaanka u dhalan oo waliba viisiyal ku soo galaya Itoobiya. dadkuna ra'yi kala duwan iyo fikrado kala duwan ayaa shirkaasi ay ka sheegayeen. qaarkood waxay lahaayeen shirkaasi waxa loola dalleeyahay ama looga gol leeyahay murankii iyo khilaafkii soo kala dhex galay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Axmed Shide iyo madaxweynaha DDS Mustafa. taa ayaa dadkii lagu kala kaxeynaya oo lagu kala qaybinaya. marka maxaa loo leeyahay? horta shirkani waxa weeyaan waa shir markii ugu horeysay sida aad u sheegtay wax way ka jiraan. horta waa muran wuxuu ka bilaabmay horta beela wax kala tirsanaya shirkani. horta markii ugu horeysay waa inaan ogaano maamul ayaa iska bedelay Itoobiya gaar ahaan gobolkan Soomaalida degto. dawaadooda Cabdi Ilaahi ayaa meesha joogay, maamulkaas wuu isbedelay. Mustafa Agchar baa yimid, political change amba siyaasad isbedel baa meesha ka dhacay. waxa jirtay reero aad iyo aad u badan oo calaw wax badan soo kala tirsanayay. laakiin marka waxaad moodaa qowmiyadan la yiraahdo dirka ayaa tabasho aad iyo aad
u weyn ka muudsay xagga magaranaysa dowlad deegaanka Ethiopia gaar ahaan xagga siyaasadda beeshaas oo runtii beel degta ah gobolada oo dhan ayaad moodayna markaa tabasho siyaasadeed ay halka ay ka abuurtay dabadna waxa dhacay shirki markaa la ilaamiyay in gobollo badan laga yimi sida Somaliland Soomaaliya iyo Ethiopia inteedaba taas markaa maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida oo Mustafa Cagshir madaxweyne ahaa ka hadal siisay oo tustay markaa inay yihiin dadka meesha imanaya dad aan wada Ethiopian ahayn ay ku jiraan dad gobollo kale ka yimi sida Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaalida kale waana dhaqan oo calawde Soomaalidu markay shirayso Soomaalidu wax weyn barigeena xuduud ma kala lahayn marka wax weyn adigoo reer hebel ayaad inta deegaanba Soomaalida degi kartaa laakiin shirku haduu yimaado oo shirka la ilaamiyo waxa dhici karta in beeshaas ka timaado deegaamo badan oo kala jaada way aan ku weydiiyo su'aashan iyaduna miisaankeeda leh yaa dir ah doorta waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan oo hadda tiraahdo calaw imika tallaa ayaa diray waxa laga yaabaa inaan cid ku soo gurman hadda tiraahdo tallaa ayaa diray waxa laga yaabaa inaan cid ku soo gurman dirku sidaan anigu eegay aan ka eegay book runtii waxa weey waa beel aad iyo aad u badan oo degta East Africa oo dhan ilaa Kenya ilaa Ethiopia ilaa Djibouti ilaa Rwanda su'aalaha waxa inta badan calaw la isweydiiyay horta qabiilada caanka ah ee dirta la yaqaan waayo labadeennaba waynu magaranaysaa waynu baraynaa inta badan hore uma inaan xisaabin jirin dirta laakiin imika kale dadku waxay aad iyo aad ku weydiinayaan for example Isaaq Madirba Samaroonku Madirba Ciisu Madirba marka waxa jiray reer loo yaqaan dirnimada laakiin imika waxa jira dad badan oo degan Ethiopia oo inaan hore ugu aqoon su'aashu halkay ka qaldan tahay keeni karta siyaasad janjeeda inagu waxaan doonaa siyaasadda inuu saxno ummadda Soomaaliyeed waa isku mid naahno laakiin waxa jira dad badan oo dir oo ku jira Ethiopia gudaheeda oo la dhaqmay Oromo taas oo marka loo qaadan karo dadkaas inay isla ahaan Oromo ka soo jeedaan dadka qaarna ay oran karaan Soomaali ay ka soo jeedaan waana waxyaabaha keentay in muran siyaasadeed oo xuni uu ka bilaabmo ninkan leeyahay Axmed Shida iyo Mustafa Cagshir marka dirtu waa qowmiyadda balaaran ee loo baahan yahay in la barto wali cid ay tahay inaan tirakoobin amba inaan garanaynin magacyadooda iyo reerahooda laakiin reer badan oo caan ah ku jira way runtii Soomaalidu qabaa'ilkooda inta badan qabaa'il is yaqaan oo magacyada amka sheeganay kuwa kale leh ay ahayn laakiin markii shirkan uu soo baxay magaalada Addis Ababa lagu qabanayay ayaa moodaa in sheekadii beeshaasi in la leexiyay oo laga dhigay sidii urur furan oo aan qabiil ahayn sidii ururkii SNM marna la gali jiray marna laga bixi jiray ururkii SDF ururkii USC oo dad badan isbahaysan jireen marka waxa laga dhigay dawlad isbahaysi dadka xitaa ka hadlaya Addis Ababa qaar baa laha Museveni waa dir hadii la ku reeyay madaxweynaha Chad waa dir hadii la ku reeyay qowlka ku dagaalami jiray Rwanda Tutsi waa xaggan marka maxaa keenay baahidan in imika la sameeyo dad alliance xulafo la isku saarayo oo magaca la huwinayo way dirta hore u jirtay waligeed waa la yaqeenay maxaa keenay imika in marka laga dhigo wax cusub oo hadii la kuray alliance loo sameeyo oo jahal loo jeediyo maxaa waxa soo horta waxa keenaya dhowr arrimood anigu waan eegay horta magaranaysa reeruhu tartan bay ku jiraan kalaan politics no wax iska caadiyo Rwanda iyo Tutsi iyo Hutu iyo inta waynu maqalaa way iska caadiya Soomaaliya waxaanu maqalay inta hawiye iyo daarood laakiin arrinku meesha aad moodeen ku jiro waxa weeyaan 40 sano u dambeysay Soomaaliya waxa xukumay reer kale daarood iyo reer kale hawiye ay isaga dambeeyay maamulkan Soomaaliya geeska Soomaaliya deganta oo dhan taas waxay keentay tabasho aad iyo badan oo xoog kale loo helaa oo charge gareeya marka tabasho aad iyo badan waxay ka timid reerahan dirta laftigooda inay political alliance badan oo xoog badan ay sameystaan marka waa is abaabul guud oo beelahan la tartamay karta reerahan kale ee balaaran ee maamulka haystay marka sidaas aad moodeen in arintani u dhacayso okay shirkan kale marka gudaha lagu qabanayo waa Soomaalida oo dhan baleeyay maxaa gudaha looga dhigay horta shirkan laftigiisa ahmiyad buu leeyahay ka markii dirsida ay soo abaabushay anigu dadkii shirkan kale laftigiisa wax ka qabtay ayaan waxaan doonaynaa in ka Soomaaliyeed oo maartay dirku waa reer Soomaaliyeed ma aha reer inaga fog maaha daaradna waa reer Kenya hawiina waa reer Kenya laakiin in ummadda inta la midayo shir weyn oo magaranaysa Ethiopia lagu qabto reeraha kale la tartami kara ayaa doonaya in marka la abuuro marka shirkan waxa weeye shiru Mustafa Cagshirna ka dhawaajiyo inagu horkici doona hadii la ka dhigo ummadana ay furantahay anigu waxaan ahay dadkii yiri shirkaayeen gudaha lagu qabanin laba arrimood ba awgeed shirkan horta waxa weyn ummadda Soomaaliyeed la isugu keenaya
gundhig waxa uu in ummadan dirtana lagu qanciyo in ay maartay kala shaqeeyaan ummadda kale ee Soomaaliyeed horumarka iyo magaranaysa wada tashiga iyo abaabulka ka jira magaranaysa dawlad deegaanka laakiin had iyo jeer waxaad moodaa in shirkan oo kale uu ku fiican yahay marti meelaha dirtu degto in shirka lagu qabto anigu dhowr jeer aan telefoon diray waxaan wargooday waan jecelahay inaan soo arko laakiin had iyo jeer imika waxa ku qurux badan tahay shirkan meelaha dirtu degto in lagu qabto amba gaashaamo amba agabar amba meelo kale oo caynkaas shirka ka qayb galaysaa anigu waa tagay anigu waxaan nahay dadka laf dhabartay shirkan kan hada goday lagu qabanayo kan hada goday lagu qabanayo waxaana jecelahay reeraha oo dhammaan ka soo qayb qaataan su'aashaasna cali waa su'aal wanaagsan anaga maamulkan aan ku dhawaaqnay inuu ugu jirto ummaddu inay midowdo oo wada tashato iskaashato marka waa qayb aan u arko inuu siyaasadda hal qodob oo midowgaas ayaan doonayaa su'aalka weydiiyo su'aashaas waxa weeye intii loo shiri lahaa reer iyadoo qowmiyada waaweyn oo balbalaaran oo 100 milyan oo qof oo Ethiopian ay challenge gareynayaan Soomaaliya inteeda kale miyaan ficlan in ay Soomaalinimo ay shirar ku qabsadaan oo isbedelkan cusub ee Ethiopia ka jira ay tartanka ka qayb galaan oo iyagoo xoog leh oo midaysan intay noqon lahaayeen beelbeel qolo walba meel aqal Soomaaliya ka dhisato oo hadii colaad dhacdana dee cagta la mariyo aragtidaas maxaa loo leeyahay aragtidaas horta waa aragtida guud ee la doonayo in la helo laakiin aragtidaas 30 sano amba 40 sano u dambeeyay dhaawac badan ayaa gaaray waana waxa la doonayo in la abaabulo tusaale imika Mustafa oo kale wuxuu ku yimid isbedel siyaasadeed oo laga dhaxlay maamul xumo marka waa fresh amba waa waji cusub isaga marka la doonayo arrimahan isu keenida ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyo arko in ummadan oo dhan madaxweyne u yahay laakiin calaw marka reerahan dirta anigu aan imika intaan program kan in dad badan baan wareystay tabasho aad u weyn ayaa jira isbedelka ugu weyn ee meesha yaalana dadkan dirta hadaad dhageysato waxa weeyaan valid reasons ayaa ku siinayaan anigu waxaan la hadlay sababa jira waxaan la hadlay caaqilo waxaan la hadlay salaadiin dad badan baan arrinkan ka wareystay waxay dadkan leeyihiin laba arrimood horta way ka duulayaan 40 sanadood oo u dambeysay dadka la dirta maamulka Soomaaliya meel ka degan ma gacan kuma qaban hadda waxay aaminsan inay yihiin xal amba solution haday maamulada ummadda Soomaaliyeed gacanta ku qabtaan marka waa dad aad muddo political alliance inay sameeyaan haddaba su'aasha jirta waxa weey waa su'aasha aad sheegtay sideeba inagoo midaysan oo isku duuban aynu la tartami karnaa qowmiyadaha kale sideeba inagu dhexdeena u kala heli karnaa miisaankeena dhaqaale iyo siyaasadeed inagoo walaalo isku tashanay marka arrintan calaw waa arrin keeni karta runtii marka nago waa arrin keeni karta Soomaalinimada ugu adkayd abid hadii siday tahay loo galo oo aan laga dhigin dadka la dirta dadaan powerka geeyin dadaan magaranaysa numberkooda saxsanayn dad Oromo ah dadaan nooc kale ah laakiin hadii loo approach gareeyo inay yihiin dad Soomaaliyeed oo iyaguna markooda mudan waxa dhici karta in la helo Soomaalinimo dhaba oo geesko dhan wax ka tarto marka waa fursado qaali oo soo maraya waxa iyaguna ay wararku sheegayaan oo adduunka weydiyo xogta ku saabsan in Soomaaliland maamulkeedu ay ku bixiyeen kharash iyo dhaqaale iyo adduun in shirka aad loo amiro shirka dir ee ka dhacay magaalada Addis Ababa isla markaasina ay doonayeen in ay kala furfuraan qabaa'ilka DDS dega oo ay gooni ula baxaan ama ay gooni markaas u maalgeliyaan in reerkaas ama beeshaas iyadoo ay wax noqoto waxa iyana laga dhadhansan karaa hadalkii madaxweynaha oo uu yiri dalal Charnala ayaa iyaguna faragelin xoog leh ku haya shirkan ka socday Addis Ababa maxaad oranaysaa horta waxa weeyaan dawladda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland ka jira faragelin weyn ayuu ku hayay shirkan waxaan doonayaa runtii iyagoo isu tusaya dadka inay yihiin dad dira hadana siyaasad bay dadka dhexwadeen waxay doonayaan dadka dirta Itoobiya degan ee xuquuq dirarka ee wax la qaybsiga la rabo ummadda Soomaaliyeed walaalaheeda la degan inay colaad ku abuuraan maal aad iyo aad u badan way ku bixisay dawladda Soomaaliland si ay ugu abuurto amba cuqdad amba colaadeed waa arrin aanu ka soo horjeedno dhinaca kale beesha garxajiska ayaa shirka qaadacday oo arkaysi mid lagu abuuray colaad oo iyadoo haba yaraatay aan ka qayb qaadan marka Soomaaliland laftigeeda way ku kala jabtay shirkaas laakiin shirkani ma aha mid dhaawacaya midnimada qowmiyadda dirka laakiin waxa weeye maamulka Soomaaliland faragelin toos ah ayuu ku hayaa isagoo ka abuuraya colaad iyo xumaan
takale dabada ka wada waxa weeyaan Soomaaliland waxay ku kacday waxaan umada Soomaaliyeed marnaba ku kici karin dad ay ganacsi wadaag la leeyihiin qaadka iyo ka baahi mustariyo waxoogaa maandooriyaasha ayay abaabuleen oo ay ka dhigeen dad ma garanaysa doonayeen shirka ka qayb qaataan siyaasad xumo aad iyo aad u weyn ayay ahayd waana ka diganaa waana takantay imika shir aad u weyn oo dambe in la qabto umada Soomaaliyeed oo dhan la isugu keeno marka arrimahaas oo dhan way jiraan ugu dambeyntii Mustafa maxaad ku baaqi lahayd shirkan ballaaran ee Mustafa Cagjar ku baaqay Soomaaliyeed ku dhaqan DDS ay soo imanayaan magaalada Goday shirkan horta muhiimadiisu waxa weeye dhamaan horta waa inaan uga mahadcelinaa inuu madaxweynahaas ku dhawaaqay Mustafa shirka umada Soomaaliyeed la isugu umada Soomaaliyeed lagu midaynayo waa in la aamina oo umada ogaata tan waan ka degay xuquuqda dirta ay ku leedahay Itoobiya waa in sideeda loo ixtiraamo oo loo galaa oo dadka marnaba la oran waa oramo qaladkii ugu weyn dhacay waxa weeye ninkan Axmed Shide la yiraahdo oo ka soo jeeda deegaamadaas amba reerahaas ayaa waxa lagu sheegay inuu yahay nin oramo ah oo qaldan arintaasna dhaawac weyn ayay ku keentay umada Soomaaliyeed kala jab waana keeni kartaa kala jab dadka dirtu waa dad jira waa dad Itoobiya degan waa dad Soomaaliyeed degan laakiin waa dad Soomaaliyeed oo Soomaaliland raba runtiina wax ka qaadan kara isu keenida iyo wada tashiga umada Soomaaliyeed taasi waa kow in shirka la taageero in umada Soomaaliyeed loo mideeyo in qowmiyadaha Itoobiyaanka la tartamaan dhaqankeena iyo dhaqaalaheena iyo wixii la mideeyo cala waa inaad ogaato Itoobiya waa dhul aad iyo aad u ballan waa dhulkii xoolaheena iyo daaqeena iyo nabadgelyada iyo asalkeena dhaqaneena ka soo wada jeednay dhamaanteen reerka doonta baad ahaato marka dhamaanteen waa inoo guuleynaa umada halka isugu keeno waxaan kaloo doonayaa oo arintan kala hadlaa reerahan isqabsan kara cala waxay keeni karaan dhaawac aad iyo aad u weyn waxa ka dhacay magaalada Jaamacadda Dubad xasuuq baa ka dhacay oo ka dhacay sanad ka hor maamulkiina ilay Mustafa maanta wuxuu sameyn karaa inuu isu keeno umada Soomaaliyeed oo kaga bilaabo Jaamacadda Dubad oo dhagax dhigo oo yiraahdo marnaba yeynaan dhicin dad dambe oo isqabsada marka Mustafana fursad badan ayuu haystaa in la wada shaqeeyo la istaakuleeyna waa aad iyo aad bay muhiim u tahay وهاجاك أدي أطباق محسن مصطفى مارتين أيو كاسينا هذا وضيال أو عن كوريسني أرمها كسبسن شلوين بلارن أو مدحوينها DDS مصطفى محمد عمر أكثر وكباقي أمام الإعلامي إن لو قبضه magaalada Goday shirkaasi oo ay ka soo qayb galayaan Soomaalida ku dhaqan deegaankaasi dhamaanteedba shirkaasi ayaa waxa ka horeeyay shir ay beesha dir ku qabsadeen magaalada Addis Ababa taasi oo siyaalo kala duwan loo turjuntay amaba loo arkayay iyadoo lagu saleynayay in shirkaasi ay uu keenay murankii u dhaxeeyay madaxweyne Mustafa Cagjar iyo wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya Axmed Shide shirkaasi ayaa iyana waxa la hadalhayay oo ay wararka sheegayeen in faragelin xoog leh ay ku hayeen maamulka Somaliland oo markaasi kala qaybinayay dhinac siyaasad iyo dhinac dhaqaalaba beelahaasi ku shireeyay halka waxa shirkaasi lagu soo qaadan doonaa in loo midoobo arrimaha Soomaalida oo markaasi tartan uu jiro dhinaca isbedelka Itoobiya oo bilihii u dambeeyay laga dareemayay geeska Afrika qoqobnaanta Soomaalida iyo kala qaybsanaanta qabaa'ilka ayaa keentay in laga guuleysto siyaasadda ka jirta deegaankaasi Soomaalida Itoobiya waxaana haatan shirkan loogu baaqayaa in la yimaado oo gacmaha la qabsado iyadoo beelaha Soomaaliyeed dhamaantood baa yihiin beelo wada walaalo ah oo isku meel ka yimid oo isku dana ayna hortaalo dhibaatooyin fara badan iyo go'aasho fara badan oo la doonayo in ay markaasi ka gudbaan oo ay gaaraan horumar tani kulankan dabada wadayaal barnaamijkan oo kale dib u kulmi doono waa xiriir dhamaantiin meedka kaga tagay sida iyo nabad galiyo adiga doon mas'uul